السلام عليكم. ما دام والدين تشتغل سجلان وحرنا قدنا عندنا فرنا سجل ساعة كل واحد منه إن شاء الله وحنا واحد لنا معمولها دugsiga مدنا عبد الرشيد الله يسر عبد الرشيد ماشي نسوي لنا خطبتين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وشني أفكره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وشني أفكره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت شرفت نوتي والدين شرفت له محاكم هذا عروض هذا الشيء معلمين يودمان كسوق الجلياشة مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب ما أنت واحد إنه محاكم هذا إنه يسوون بيت وإنه غفر لحفلة إنه صار إنه محاكم هذا مناسبة كسر سن qalinjibinta ardayda dugsiga ka qalinjibisay oo isugu jirta laba sano marka waa 9 arday 9ka arday sanadkii hore maxaan ku raadaa 2013ka waxaa ka qalinjibiyay maxaan ku raadaa dugsiga arday 3 arday ah ayaa ka qalinjibiyay sanadku markuu ahaa 2013kii waxaa sanadka ku xigay maarka hadda ina dhaafay 2014kana waxaa ka qalinjibiyay arday 6 arday ayaa ka qalinjibiyay marka la isku daro labada group maxaan ku raadaa ardayda ah waxay isku noqonayaan 9 arday bay isku noqonayaan ardaydaas iyaga ah aynu maanta doonaynaa inaynu halkan uga xafladayno haddii uu ilaahay ka raali noqdo hadda 4 dhalinyaro ah halka fadhiya waxaanu ku talagalnay halkaas inay maaragtay ay fadhiistaan hal arday wuxuu u guuray meesha maxaan ku raadaa dalboon bay u guureen maxaan ku raadaa arday kalena inuu galabta soo galaa la rajaynayaa holiday ku maqnaan laba wadada hadda ku soo jiraan saddex ka mid ah wadada ku soo jiraan ardayda xafladda aynu u qabanayno waa sidaas maxaan ku raahdaa 9ka arday waxaynu samaynaynaa haddii alla idmo programku halkan ku qoran yahay wuu inaga halaabay xilligaynu ugu talagalnay haween dadkii maatankiisii ayaa maaragtay soo daahay marka programku sida halkaa ku qoran ee maaragtay aynu horey u bixinay ayuu inoogu qoran ayuu maaragtay u soconaya haddii alla idmo inkastuu programkii isbedelay oo xilliga aanu ugu talagalnay uu dhaafay haddana waxaynu ku jirnaa maalin holiday ayaynu ku jirnaa maalinta holidayga ah waxa weeye meel aynu ku degdegayno oo saasi ma jirto alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa kaloo oo jirta xafladdu inta way kasii weynaan lahayd waxayna la joogta maxaa gabar ka socota waxbarashada gabadha waxaa la
yidhahdaa Leonard baa la yidhahdaa waa gabadhii u qaban qaabisay programka ardaydan waxay ka socotaa maxaan ku yidhahdaa manhajka ama maxaan ku yidhahdaa curriculumka waa gabadha managerka ka ah maxaan ku yidhahdaa imtixaanaadka South Australia nasiib wanaag maxaan ku yidhahdaa waxaan kusoo aadnay maalin public holiday oo dadka oo dhan ay ku jiraan maxaan ku yidhahdaa dabaaldeg ay ku jiraan dadkii marka aanu marti qaadnay qof walba waa cudur daartay ilaa xafiiska wasiirka waxbarashada way cudur daarteen waxay nala joogta gabadha ayaa inagala joogta laakiin waxa weeyaan munaasabadda sidaan ugu talagalay insha allah ayay u socotaa dad fara badan oo waalidiinta ka mid yihiina way soo socdaan marka maadaama waqtigii naga dib dhacay ma doonayna inaan maaragtay waqtiga iskaga sii qaadno programkana saas bay noogu socon doonaa waxaan ku wareejinayaa haddii alla inoo xidhiidhinayaa programka intiisa dambe haddii ilaha yidhaahdo Yonis baa inoo xidhiidhinaya waxaan jeclahay markaa inaan kusoo dhaweyno halkan waxaa inooga muuqata programmo fara badan oo talagalay ardayda ay meesha ku muujiyeen ayaa ku jira waxaa ka mid a presentationka ardayda ay noo samayn doonaan haddii uu ilaahay ka raali noqdo inay bal ku akriyaan ingiliishka ay turjumaan oo ay wax naga tusaan waxyaalihii ay soo barteen oo af Soomaali iyo English ay labadoodba isku turjumaan ayaynu eegan doonaa haddii alla inoo ay soo bandhigi doonaan waxaa kaloo aynu soo bandhigaynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo dhalinyarada yaryar ardayda master waa maqan yihiin oo weli ma iman maxaan ku yidhahdaa inay halkan alifbeetada ku akhriyaan oo ay presentation ka sameeyaan haddii ilaahay yidhaahdo markaa kadib waxa weeyaan maxaan ku yidhahdaa halkaasa programku naga socon doonaa sida halkan ku qoran gabadha ayaa maaragtay khudbad jeedin doonta waalidiinta maxamuud baan awal ugu qoray maxaan ku yidhahdaa inuu maaragtay kelmadii waalidiinta ugu yidhaahdo halkan waxaa inoo taallaa waxyaalo aad u fara badan oo carruurta loogu talagalay in ay maaragtay ay isticmaalaan haddii la yidhaahdo shahaadooyinka baynu bixinaynaa waalidiinta laftooda presentation baanu qaar ka mida ka siinaynaa haddii la yidhaahdo ardayda graduationka samaysay iyagana shahaadooyin baynu siinaynaa markaa kadib baynu haddii alla maqadaynaynaa fadhanaynaa haddii alla xafladda haddii la karaali noqdo marka Yonis waxaad kusoo dhaweysaa kusoo dhawow meesha oo maaragtay carruurta kusoo dhawey dhalinyarada waxaan jeclaan lahaa qadar oo macalinka dugsiga ah hal mar inaan kusoo dhaweeyo quraan iyo wacdi xoogaa inoogu furo maalin qadar kusoo dhawo fadlan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن شاء الله عندنا waxaan rajaynaynaa ciyaalka yar أصور على هذا كرمان أنا حرجنا عيالك سهر iyo sooga إن شاء الله وحرجنا ناس ilmaha ama qobarna dugsiga alfayda Somali ku من شغل ساستاga وادمين أخريها دور إن شاء الله تقولون حسب اللي قدونا سدي أي أرضي ربحوا عبرنا أنتوا يقالوا إيش زين سار بالأوضة إن شاء الله هذا مهم بعضها بشارة بالأوضة إن شاء الله وايد أنا بيتد ما يشك بالعون يس بشارة هيسو ظاهر بشارة إن شاء الله بس وحي هاي حقا أن صوب ندقني على بيتنا عروض
ما شاء الله كما سنتين إن شاء الله مركز لازم في عنصر عبين دونا يقوم باللي بقوله يسايو في الصومالي على كذا مركز إن شاء الله نقصده وياه الوالدين تمت كم إذا مركز ران كتبيو عبد الشيء برا بحاول بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد كسر وين نعدي على لبا أرضي وكم إذا أرضي ده محاك ولا هذا قلنجبسay ومدنا ويروح آخريا محاك ولا إنجليش كوا آخريا مدنا وكوا آخريا في صومالي وترجموا ساكع وحويا محاك ولا هذا الوقيو الهان أي يروح آخريا هذا الله يرحمه شو ده وين نفسه السلام عليكم magacayga waa ilhaan mursame waxaan doonayaa maanta intaan ii sheego taariikhda iskuulka qoray iyo waxbarashada cilmiga ilmaha la baro ardayda la baro iskuulkan waxaa la furay 12 sano ka hor ilaa markaasna arday badan oo badanaa dhigato iskuulka dugsiga sare iyo dugsiga hoose baa nagu soo biireen ardayda maxaa la baraa kow si loo akhriyo Soomaaliga labo si loo turjumo Soomaaliga iyo saddex si loo qoro Soomaaliga waxaa kale la baraa dhaqanka dadka Soomaalida iyo juqraafiga wadanka Soomaaliya ardayda maxaa la waxaa kale ardayda la baraa maado kale oo ku saabsan waxbarashada diinta Islaamka aniga naftigay waxaan ku soo biiray iskuulkan markaan dugsiga sare bilaabay waxaanan ka qalinjabiyay sanadkii hore hadda ribo baa noo dhehayso English translation Hello, my name is Ridwa Ali. Today I would like to talk to you about the history of the Somali Ethnic School and the sorts of teachings that are taught here. The Somali Ethnic School was established in 2004, almost 12 years ago. Since then, we've had a lot of students, mostly in primary school and high school, enroll with us. Students are taught how to write, read, and translate in the Somali language. Students are also taught about the Somali culture and the geographical nature of the country. We've also got a whole subject dedicated to the teachings of Islam. I was enrolled in the ethnic school from the very start and graduated in 2013. I am proud to be among the first group of students who have graduated from the Somali Ethnic School, but since an official graduation ceremony could not be held for my year level, I am graduating today along with 6 other students who graduated in 2014. Thank you for listening. هذا لو حاجة على إنه بسموه يهدي ولا هاي كرا على نقطة محاكو إلى هذا آمنة أو معلك أرضي سايسكا أيها محاكو إلى هذا إنه كلمة هذا هدي هاي كرا على نقطة قال لي نوع هذا إسكا صبر وحوي والدين وقت جي عن كترك الله أيها عادي عادي بكرة علي مركب وحوي عن رالي بعد هذا إنسان ده محاكو إلى البرنامج بيصير بيسوق عليه أنا كترك الله بيسوق عليه أنا ما أعرف أنا ربنا مركب إسكا صبر بليز السلام عليكم ودنا يمروين حروف يمرولين دمانتي وسلامتين سلامك بعدي واحد بدن مرة بينا نراهدو سكولكا إثني سكول وحويان سكولكا دقنكا يا لغة الصومالية سكولكا معها سكولكا كلية صوت أستراليا كفرن لكن هو سكولكا كلية الصومالي دولا صوت أستراليا وحا كفرن أفرتن يسدح سكول ولغو برتو أفرتن يسدح لغدود وكلا دول ardaydooda qaar ayaa heer jaamacadeed maraya oo luqadooda jaamacad ku diyaariyay annaga laakiin sanadkii hore ayay waxaa noo hirgalay ilaahay mahadi inaanu helo qaybta science-ka oo ah secondary-ga laba group ayaa noo qalin jabiyay groupkii hore waxaa nooga qalin jabiyay 3 arday maasha Allah si qurux badan bay u diyaariyeen science-kii waana ku baaseen grade fiican way heleen waana ka saacideeyay jaamacadda galitaankeedii sanadkii haddana soo dhaafay 2014 ama 2014 waxaa noo qalin jabiyay 6 arday nasiib wanaag waxay ahaayeen 9 arday 3 arday oo kamid ah kumaanay guulaysan imtixaanka dhameystiraan
لي أرضي أيام لما يستري لحينا وحي قاتين stage 1 iyo stage 2 labada way dhamaystireen waxayna ku guuleysteen inay meeshii laga rabay gaaraan isla markaana ay helaan grade-ka jaamacadda ku gali lahaayeen oo out ka ah waxay iskuulada ku soo dhigteen iskuulada mainstream-ka dadku waxay u jecel yihiin maadada xisaabta ardayga ee keena waxa uu la mid yahay arday maartay helay key of education ama furiya aqoonta helay maadada xisaabta waxaa lagu bixiyaa 20 point maadada Soomaaligana waxaa lagu bixiyaa 20 point waa hooyeen opportunity aad u weyn oo qof walba inuu ka faa'iideysto loo baahan yahay ardadana lagu dhiirigeliyo waayo ardayga marka lagu dhaamo maadkiisa wuxuu keenay A+ buu keenay aad baad u farxaysaa because kulligeen waxaan ognahay qof kastoo ardaynimo soo maray qofka maadada xisaabta ee keena already ardaygaasi waa successful waa arday guuleystay ama waa arday maadooyinkii kale la dhiirigeliyay أنا دي كوبي شهرين يا مادة Somali إني تعال level تاي والlevel كحسابته أو كله 20 marks بلوه ليه حسابته هذا advanced حساب ديارسه أو specialist ماد ديارسه 20 بهاليسه هذا Somali language ديارسه 20 بهاليسه مركعرك واحد كارن لسه إلمها إلى اللغة وما هي كأي وزارة وحبرشته أي جالسين مركع وحنا دي كود ديرك لنا يا واردين تا إن إذا نو أركين وحوسية كو أرضي وحبرنا يا اللغة ديسي وافكيسي هو يبرنا يا لبا وحبرنا يا culture كيسي صدق وحبرنا يا ودن كيس بيش أدونك كجيا ويا إلمها أنا وحبرنا موصل وإلما كل شيء outside of Somali واحد Somali كل شيء بيشرح ما واحد كل شيء ودمد درس كإن لا أما ودمد أنا هذا الشغل كل شيء ما يقانا Somali وحيتا ما يقانا Somali عارفوا وحكورنا يا Somali أستراليا مكونتا العدل مكونتا السؤال في لو كلام على هذا يقولين سؤاله يكويديني هو سؤاله كنت أتكلم حيسو مركا واردك هدوسا في Somali حتى قهدين wuxuu garanayaa wadankiisu meesha uu adduunka kaga yaalo wuxuu garanayaa wadankiisu inuu yahay wadan uu future-ka inuu ku laabto istaayile uu fahmaya marka wax fara badan oo faa'iido ah ku jirta wuxuu helayaa social connection buu helayaa waayo ilmihii daadiisa ah oo community-giisa ah wuxuu xiriir la yeelanaya oo maarata ilmihii ula xiranaya laakiin ilmuhu hadduu guriga uu iska joogo oo uu hada mainstream-ka intuu tago ilmo aan la midab ahayn intuu u tago uu halkaa isaga joogo weygiiba wuxuu ahaanayaa ilmo isolate oo aan cidnaba aqoonin لكن هادو سكول كيمادو وسهريا community connection بيريا دتشيسي ولا حرانيا حروتي لف عايد لك عاميا لك عيا المهم waxay ciyaaraan 30 daqiiqo ay banaanka ku ciyaaraan 2 saacadood kadib marka ay iskuulka ay ka soo baxaan 30 daqiiqo waxay ugu qiimo badan yihiin waxa ay dhigteen oo dhan qaarba waxay ku leeyihiin haddaan ciyaarta imaado ka hor oo iskuulka ba dhigan oo waalidkiis iskuulka keenay ciyaarta ma iman karaan hawa iman kartaa ima baan dhaana بس مرة من الماء إن فوقينه وعن جرب حتى كون سكول كديكان إن سوتشي أو سكول كتير وحنا نقول للرجالين المي هنا سكول كا أنا وحنا معلمين فرنتيرة سكول كا لعك ما قادم وارد كا لعك ما قادم لكن وحنا وقت كي يقولون الماء يجا إن نوجد بينه وحنا نقانو لأنه بري واحد من إن أنا متشوقين أقانتو واحد حال قفت بلا آدم كأي وحاوقته وحاوقي ما بدن waxa uu hayo u gudbiyo dadkiisa hadaad adigu kaydsato oo waligaaba uu kugu jiro oo ilmahaaga u gudbin bari markaad dhimato wax raad ah leedahay male ilmahaaga raad gama tagi bulshadaada raad gama tagi bulshadu waxay ka soo bilaabantaa qoys bay ka soo bilaabantaa waxay timaadaa community waxay tagtaa national ummadda ilaahay na dhaxasho hadaynan ilmaheena afkeena iyo dhaqankeena keeno isin oo afkeena iyo dhaqankeena haday baabaan inana waa baabaaina ummad markay dabar jarmayso waxa baa afkaaluma kan kaaluma kadib noqotaas waa dhinta waa baabaa isku soo dub waxayaan hadalkaydu ku badin waxaan rabaa inaan idin kormaro ilmihii sanadkan waxbarashada dhameeyay ee dugsiga sare ka baxay dhammaantood waxay ku guuleysteen inay galaan jaamacadda waa bishaar lixdoodii way ku guuleysteen inay jaamacadda وأرين عادي عاد معناها وأرين عادي عاد أنا قلنا نودي رجال ليس الماء قدم بي أيها نودي رجال نوع أيها إدين شو بدونا أرضي ولا بقى إنه هراي ما ددي حتى أوصفه بهنا إنه هراي وهي أرضي كستابة هو هراي هو فيو كهراي سكول كون بيكتو مركب وحن هذا الكوكوس وكوبيا وهذا شقين مع والديني متى كانوا وحن لا أي ذلك والدين تاني dadka macallimiinta dadka aqoonyahanka ee bulshada ku jira aqoontiina la dhimanina ee ilmihiina u soo bandhig aqoontiina qora afkiina qora idinkoo guryihiina jooga buugaag sameeya buugaagta noo soo gudbiyo waxaad rabaa buug hal qofka waalid hal buug qora
إلههم وقرأ قبيدي سيد محمد عبد الله حسن إلههم وقرأ هستريجي أحمد قري وإلمي سوسو ومجيء سكوكرا نفع وتاريخ ما دينا إن النار ما دينا نسوا ويوينك وحلايا مركز المها وهي سيسان وتقوليه نتشوكتان وهذا هو يستان لغدين هاي دين دين الإنتاج قرطان إن الدكسي نسوق بسانة كمان المها هلا برا هسي صومالي وقوانه بس البيه نقارو حدا كيس ما كي بنانا ذي تشوكان وحكويسيا ماكدونالد بكويسيا عقب يعني نكويسان أفكودين نكويسان ويلا دوسوهاس أوركيا محي هذا أسوأ أوركيا قبتي أرحت بكوفة باديو المها مرور بكرة دقال إنها نقل كودوني إنها أفكود إنها إنسان حرير كبرشة ولا دمي يسوى أفكي كوه ذي هذا حرير كبرشة دميو الماء سواد ما لها حرير كبرشة دميو قبح الماء خط وقبح المهم هو إنه برشة ده حرير للين أستراليا وحيكون سنتي communities بيكون سنتي community وده وين كي يغانا ضد قف سوى إنه قف كي يغانا أفكي سوى إنه أفك كي يغانا وين يغانا رات كيس ماشوا كي مدوا إنه يغانا يلمو حنا لا هاي وده شقين وعن سكول كيني المه هو المهني أفكنا وأفكني نغني يعني لا ضيعن وبالله التوفيق والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وحويان وحنقص الوين يا لنا بس لا كلمة ترى هذه لا يقرأ النقطة قص الوين يا لنا welcome yeah Good afternoon, everybody. I thank Abdi for inviting me today. I feel very special, really very honoured. Last year I began working at the SACE board and I was very lucky to work with Abdi and Amina to help them do all the documentation and all the work for the SACE. It's a very difficult thing to do. There's a lot of it's very complicated. So I enjoy working with Abdi and Amina so that their students, your children, could do the subject called Language and Culture as part of their SACE certificate. So the subject is for languages in our community and small languages like Somalian, and it's so that the language can be studied by students and get their SACE certificate. So at the SACE board we think it's very, very important that students can do their community language and get SACE for it. So congratulations to all graduates from last year. It is very, very important. You are important role models for the young people in your community, and I know you worked very hard, and I know through the guidance of Amina and Abdi that you do them proud. All right, so well done. For the little children out there, I strongly recommend that you follow your role models and you also learn and speak your language because it is very important for your community and your culture. Okay? waxay jira gabadh waxaan la shaqeynayay maxay ku dhahdaa community-geena Abdi iyo Amina ayaan maaragtay si toos u wada xidhnay waayo iyana waxa weeyaan waa macalinka inooga ah wakiilka maxay ku dhahdaa SACE wuxuu u taagan yahay maxay ku dhahdaa certificate-ka dugsiga sare waa qaybta imtixaanaadka marka guddiga boardka ayay gabadhani madax u tahay marka sida ay ka sheekeynayso waxa weeyaan waa community-yada oo dhan iyadoo la shaqeysay iyo innagana si gaar ah in la sii shaqeysaa waxa weeyaan Amina arrinta aad u dhamayso si fiican u falanqaysay Englishkana wuu fahmayaa maxaa ku dhahdaa dadku badanaa way fahmayaan ma doonayo waqti badan inuu inaga sii lumo haddii Ilaahay ka raali noqdo inkastoo dadkii iyo ardaydii qaar dambeeyaan presentation-ka aan doonayo inaan bixino
waxaa ka mid ah maxaan ku idhaha ardayda inuu horumarnay ahayd laakiin inta ay ka imanayaan waxaan sugaynaa ardaydii qaar ka mid a ayaan sugaynaa so waxaan hormarinaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo waalidiinta qayb aan ugu talagalnay qaybta waalidiinta aan ugu talagalnay waalidiinta iyada oo dhan waa loo fiican yihiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mid kasta oo waalidiinta ka mid ah mid ardayda keeno oo iskuulka ku xidhan iyo mid aan ku xidhnaynba annaga waa noo waalidiintii waana noo fiican yihiin laakiin categoriga aanu eegnay maadaama aan qof walba maxaan ku idhahda shahaado marka la siin karin waxaanu ka soo qaadanay ilaa dhowr qof oo maxaan ku idhahdaa aanu siinay maxaan ku idhahda ugu talagalnay inaanu shahaadooyin siino iyo ijaazooyin yaryar oo maaragtay dee iska hadiyada ah haddii aan la idmo annagoo categoriga u eegnay markaanu dhinac kasta ka eegnay ardayda waxaa la rabaa inuusan ilmuhu uusan habsaamin ardayga waalidiinta aanu isnino way ugu horeeyaan ilaa 6 ugu horeeya oo ilmahooda uusan habsanka aqoonin ayaanu soo qaadanay taasaan ku bilaabaynaa Leonard we started the presentation we supposed to be started the students but some students we are waiting and we are started the parents okay all right so waxaan u yeedhayaa haddii alla idmo maxaan ku idhahdaa kasali haji is coming waxaan u yeedhayaa haddii alla idmo deeqa cali ayaan u yeedhay wait sorry deeqa cali please come in gabdhaha waxaad siinaysaa usacbiya deeqo please Certificate. My dad wants a certificate. waxaan u yeedhayaa maxamuud axmed xuseen waxaan jeclahay inaan u yeedho maryan odawaa maryan waxaan u yeedhayaa xabiibo macalaadan aawey maamadii insha allah maamada igu qaad waqti ma hayeen insha allah xabiibo okay waxaan u yeedhayaa cumar digaale master cumar digaale cumar aawe cumar haloo qaado jaale halkiisa muwalaya okay ha master cumar way dhammaadeen waxaan u yeedhayaa macallimiinta ayaan iska gudbinayaa waayo inaynu qadaynaan rabnaa ardaydu ha dambeeyaan iyagaa lasoo habsaamiyey marka macallimiinta ayaan doonayaa just we give them a teacher okay Yonis macallin Yonis محمد فارح اسمه هي آمنة يا كحيجة واحد كحيجة أمال عثمان وطبيت عبد القادر عبد الباري مستر عبد القادر معلم القرآن thank you halkaa waxaa iga dhammaaday maxaan ku idhahdaa intii aan ugu talagalay presentationka waalidiinta ama iyo macallimiinta
ardaydii maadaama ay daahsan yihiin iyagana waxaan ugu talagalay inay iyaguna iska socdaan wixii soo habsaamay uu habsaamay waxaan doonayaa inaynu qadayno oo aan waalidiinta iyo dadka fasaxno insha allahu waan bilaabayaa iyagana geela I know what I'm doing. No. I know how to do it. Can you leave it? If you don't leave it, how are you going to push it in? I'm old. Don't touch your head. I'm nearly 18. No, it's nothing. I know how to use it. Hey, leave it. Don't touch your head. Okay, I won't touch. I'll take care of it. marka lagu dhibaatayna waxa weeyaan waalidiinta qof ka mid ah hadda dadweynaha community iyagu waa suuqayaa fadaaka waxa weeyaan waxa inoo dhixinaya oo barsiid gareynaya ninka la yiraahdo maxaan ku dhadaa Usmaan insha Allah ardaygan u yeero uu soo kacaya macalinku uu dhibaya maxaan ku dhadaa hadiyada uu leeyahay hadii ay ka raali noqdo waxa weeyaan Cabdiraxmaan Khaliil kan waa kuma Shariif Abdi Giire شريف عبد الجير مجهوله وحانوي يا محاكم هذا فائسة ولي ما يمن هنا تبعتها هاي وحانوي يا محاكم هذا عبد الفتاح عثمان وتوبد وكزوجنا وصوصلة وحانوي يا عبد الرحمن قولت ملبون بوجرا مجهوله أنا وهنا إن شاء الله وحانوي يا محاكم هذا هاشم معلم آدم أنا هاشم آدم معلم إلى إذن سبحانه وتعالى يأتي ولا يدهدون إلهام حول ورسمة إلهام حول ورسمة وحانوي يأتي ولا يدهدون محمد عبد علي ويلكم وحانوي يأتي ولا يدهدون رضوان عبد علي اوكي اللهم استعان على ما تصفون وحنوي يا محمد عبد الرحمن خليف الله قاضي وحاو قاضي محمد هذا تشوقه welcome اوكي سيدا aynu ka warqabno waxaa jirta wax la yiraahdo haddii la ordo ama la socdo ama meel la aado waxaa dhacda maxaa ku yiraahdaa in la kala dheereeyo ama tartan la galo ardayda labada arday ugu sareeyay labada group ayaa qolo waliba waxay leedahay maxaa ku yiraahdaa ardayda maxaa ku yiraahdaa groupkii hore ardaygu uu dhibcaha sareeyay waxaan ugu talagalnay hadiyad gaar ah sida maaragtay caadiyan ardaygii tiimka ugu dambeeya maxaa ku yiraahdaa isaguna 2014 ahaa isagana waxa weeye waxaanu siinaynaa hadiyad waxaanu yeedhayaa ilhaan cawil warsame waxa weeye ilhaan cawil warsame waxay gashay maxaa ku yiraahdaa ardayda u dambeysay 6 arday dhibcaha ugu sareeya ayay maaragtay ay gashay oo heshay waxay kaloo heshay oo anigu arkay shahaadadeedii waxay noqotay student of the year of high school iskuulkeeda arday ugu sareeyay ee dhibcaha qaaday bay ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin waxa weeyaan congratulations waxaa awal shahaadadii masin adiga la aanaysa معلمين الشهادين أكاديمية الآن محمد عبد علي labada arday waxay heleen midkii waliba iPad haddii uu ilaahay ka raali noqdo kuwa dambe
يكون صوص على يمين والقط وحوي إنه ترتك في سكة قاطو ومحاك وين هذا سلاس أديه ولا يكره على نقطة سيدا كوا اسمه هلا يسلم من هو هلا أديه ولا يكره على نقطة سيدا سرجين إن إله يدك بس محا يسوع علي وحنا لا شقيسين إن بدن محاك وين هذا لذا محلوب ترك الله محاك وين هذا إلى مسيحه سيرو محاك وين هذا بصبالة لذا سي أحمد وعلوم يا certificate كذي thank you halka waxaa ii yaalla macallimiinta shahaadooyinkoodii anaa siinaya dhibaato idinku iskuma hayso waayo waxa weeyaan waqtiga aynu ugu talagalnay waxaan ugu talagalay programka sida hortiina ka muuqata inaynu bilowno maxaan ku idhahdaa uusan gaadhin kowda haddana waxaynu joognaa maxaan ku idhahdaa waqtiga aan doonaya inaynu meesha xidhno hadday aad timetable-ka eegtaan shubaale waa biyo la bax shubaale waa isla burgegeyn waa inoo xidhan yahay waynu qadaynaynaa insha allahu sidaas ayaynu ku xidhaynaa intiina ka soo qayb gashay iyo maxaan ku idhahdaa dhammaanteedba ardayda dhammaanba waad mahadsantihiin shirkuna waa inoo xidhan yahay marka aynu qadayno haddii ilaahay ka raalli noqdo waxaan ka codsanayaa dhallinyarada hadhowtooda marka maaragtay meesha qadadu dhammaato in ay maaragtay ay gacan siiyaan dadka shaqaynaya oo ay meesha inaga nadiifiyaan haddii ilaahay ka raalli noqdo waad mahadsantihiin dhallinyarada waxaa la rabaa dad tirsan qofna yuusan meeshiisa ka dhaqaaqin waynu qadaynaynaa haddii ilaahay ka raalli noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halmaamay dhallinyarada yaryar waxaan ugu talagalay maxaan ku idhahdaa waxyaalaha hadiyada ah ardayda inta kale laakiin hadda waan siinayaa waan qadaynaynaa annagii ardayda yaryar baa isku soo hadhaynaa wasalaam